waa magaalada caasimadda u ah dalka Ukraine ee Kiev oo saaka ku waabariisatay dhawaqa codbaahiyeyaasha dagaalka. Dhawaqan oo ka dhigan digniintii ugu dambeysay ee ay xukuumadda dalkaasi ugu digayso shacabkeeda kuna ogeysiinayso in dalku uu galay xaalad dagaal. Waxaa la joojiyey dhammaan duulimaadyadii diyaaradeed ee tegayay dalka Ukraine. Madaxweynaha dalkaasi ayaa shaaciyey in xaalad degdeg ah uu ku soo rogay dalka oo idil, waxaana la faray dhammaan gobollada dalkaasi inay soo rogaan qawaaniinta curfiga ah ama qawaaniinta dagaalka. Haddaba maxaa ka socda Ukraine? Xaggeese labada dhinac isla marayaan? subaxnimadii hore ee maanta, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa shaaciyey in ciidamadiisu ay howlgal gaar ah ka fulin doonaan gobolka Donbass oo ka mid ah 2 gobol oo uu dhowaan u aqoonsaday Ruushku inay yihiin dalal ka madax bannaan Ukraine. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ka soo muuqday warbaahinta dalkaasi ayaa faray ciidamada Ukraine inay dhigaan hubka kuna noqdaan guryahooda, wuxuuna u sheegay in ciidamadiisa iyo ciidamada gododsan ee hoostaga 2 gobol ee uu Ruushku aqoonsaday inay ka go'an tahay dagaal aan soo noqosho lahayn. Hadalka uu jeediyey Putin in yar uun kadib waxaa duulaanno loo adeegsaday gantaalo lagu burburiyey in badan oo ka mid ah saldhigyadii ciidan ee Ukraine, wuxuuna Ruushku shaaciyey saacado yar uun kadib inay si rasmi ah u burburiyeen difaacyadii cirka ee dalkaasi. Kadibna waxaa xigtay in ciidamada Ruushku ay galeen magaalooyinka dhaca xeebta ee kala ah Odessa iyo Mariupol oo ku yaala qaybta koonfureed ee dalka Ukraine. Magaalada Mariupol ayaa ah magaalada ugu weyn magaalooyinka dhaca jabhadda lagu dagaalamayo xilligan, waxaana lagu qiyaasaa dadka deggan inay ka badan yihiin 5,000,000 qof. Madaxweynaha Ukraine ayaa isaguna dhankiisa amray in dhammaan gobollada dalkaasi lagu soo rogo xaalad degdeg ah laguna dhaqmo axkaamta curfiga ah. In dal uu ku dhawaaqo inuu ku dhaqmayo axkaamta curfiga ayaa ka dhigan in dalku uu galay xaalad uusan awood u lahayn socodsiinta qawaaniintii caadiga ahayd. Sidoo kale, dalka Ukraine ayaa joojiyey dhammaan duulimaadyadii diyaaradaha ee dalkaasi ku wajahnaa, waxayna xirtay xukuumadda dalkaasi dhammaan adeegyadii internet ee dowladda, cabsi ay ka qabto in hakariska Ruushku ay jabsadaan xogta dowladda laguna soo qaado duulaanno saybaraniga ah oo barbar socda duulaannada ciidan ee uu Ruushku ka geysanayo dalkaasi. Haddii aynu milicsanno dhinaca dalalkii xulafada la ahaa Ukraine, wasaaradda difaaca Maraykanka ee loo yaqaano Pentagon ayaa shaacisay in Ruushku uu 100% si rasmi ah ugu diyaargaroobay qabsashada dalka Ukraine, waxayna sheegeen in 150,000 oo dagaalyahan oo ku sugan xuduudda dalkaasi uu la leeyahay Ruushka ay haatan u dhaqaaqeen dagaal rasmi ah. Qaybtood waxay galeen gudaha Ukraine, inta kalena ay weli heegan ku jiraan. Dhinaca kale, gaashaanbuurta NATO ayaa ilaa hadda ku kooban cambaarayn oo keliya oo aan weli si rasmi ah dagaalka u soo faragelin. Ra'iisul wasaaraha Ingiriiskuna wuxuu sheegay in Ruushku uu doortay waddadii dagaalka, dhinacna iska dhigay dhammaan xalalkii diblomaasiyadeed iyo wada hadal, wuxuuna sheegay in waddadan uu doortay Ruushku ay ku dhammaan doonto burbur iyo daadinta dhiig oo keliya. Tan iyo intii uu saaka subaxnimadii bilowday dagaalka rasmiga ah ee u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka, waxaa sare u kicii ugu weynaa uu ku yimid qiimaha shidaalka oo uu gaaray qiimaha halkii foosto $100, waxaana sabab looga dhigay saamaynta uu dagaalkani ku yeeshay qiimaha shidaalka dalka Ruushka oo ah mid ka mid ah dalalka ugu waaweyn ee soo saara shidaalka ceeriin, waana dalka labaad ee ugu soo saarka badan shidaalka. Sidoo kalena waa dalka ugu weyn ee u dhoofiya gaasta dabiiciga ah dalalka Yurub. Haddaba, haddii aynu dhinac iska dhigno dagaalkan maanta sida rasmiga ah uga bilowday Ukraine, aynu kala milicsanno xulafada labada dhinac ay kala haystaan. Ruushka waxaa barbar socda oo dagaalka ku garab taagan dalal fara ku tiris ah oo ka haray dalalkii la isku oran jiray Midowgii Sofiyeetka, waxaana ugu weyn dalalkan dalka Belarusiya. Dhinaca kalena, Ukraine waxaa barbar socda oo garab istaag u muujinaya reer galbeedka oo dhan oo ay ugu horeeyaan gaashaanbuurta NATO iyo sidoo kale dalka Maraykanka. Laakiin waxaa jira dal labada dhinacba saaxiib la ah dagaalkanna, haddii uu noqdo mid sii weynaada oo ay labada dhinac xulafadoodu ku soo biiraan dagaalka, ay ku noqon doonto laba daran mid dooro. Dalkaasi ayaa ah Turkiga. Turkiga
oo xiriir ganacsi iyo mid difaacba la leh Ruushka ayaa ku baaqay in xaaladda la dejiyo oo wadahadal lagu dhameeyo tabashada labada dhinac. hase yeeshee dowladda Turkiga ayaa tibaaxday in haddii ay xaaladdu isku rogto dagaal toos ah oo u dhexeeya Ruushka iyo gaashaanbuurta NATO, in Turkigu uu difaaci doono danaha gaashaanbuurtaasi uu ka midka yahay ee NATO. Turkiga ayaa marar badan sheegay in xiisadda Ukraine xalkeedu yahay wadaxaajood dhab ah ayna diyaar u tahay dhexdhexaadinta labada dhinac. hase yeeshee dadaalka Turkiga waxaa caqabad ku noqday tallaabooyinkii u dambeeyey ee uu qaaday Ruushku markii uu Ruushku aqoonsaday labada gobol ee ka tirsan Ukraine. jawaabta wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa la mid ahayd tan reer galbeedku ay bixiyeen, waxaana qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi lagu yidhi waxaad gudub cad oo lagu sameeyey madaxbannaanida iyo midnimada Ukraine. waxaannu u aragnaa go'aanka Ruushka mid aan la aqbali karin, waana qaadacnay. madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo talaadadii aynu soo dhaafnay ka soo laabtay safar uu ku tegey dalal Afrikaan ah ayaa su'aal laga weydiiyey xiisadda Ukraine uga jawaabay, ma ahan inaannu kala dooranno Ruushka iyo Ukraine, dalkan ayaan maamulnaa, waana inaan difaacno danihiisa. danahaasi ayaa loo fasirtay in Turkigu aanu doonayn inuu xumeeyo xiriirka dhow ee uu la leeyahay Ruushka, gaar ahaanna xilli dhaqaalaha dalkaasi uu wajahayo caqabado badan. lacagta liirada ee laga adeegsado dalkaasina uu ku yimid hoosudhac aad u weyn qiimaheeda. markii uu Ruushku qabsaday jasiiradda Crimea sannadkii 2014, Maraykanka iyo Midowga Yurub ayaa cunaqabateyn kala duwan saaray dalkaasi, balse Turkigu kama uusan qayb qaadan oo wuu diiday inuu cunaqabateyn saaro xukuumadda dalkaasi. maantana xiriirka Turkiga iyo Ruushku waa uu ka ballaaran yahay sannadihii hore. Turkiga ayaa ku doodaya in cunaqabateyntii Ruushka la saaray 2014 aysan wax badan u dhimin, sidaas si la mid ahna aysan mid cusub saameyn xooggan ku yeelan doonin. taas beddelkeedana Turkiga ayaa door bidaya in Ukraine laga taageero xagga difaaca oo ciidamada dalkaasi loo qalabeeyo. Turkiga ayaa dalka Ukraine la leh xiriir military oo waxay ka iibisaa diyaaradaha bilaaduuliyaha ah ee daroonta loo yaqaano, kuwaasi oo guulo la taaban karo ka soo hooyey dhowr dal oo ay colaadi ka socoto sida dalalka Suuriya iyo Liibiya. Ruushka iyo Turkiga ayaa la kala safan dhinacyada ku dagaalamaya dalalkaasi, waxaynu u jeednaa dalalka Suuriya iyo dalka Liibiya. isku soo duuduubo, Turkiga ayaa xiriir ganacsi oo muhiim ah la leh Ruushka. tusaale ahaan 33% gaaska dabiiciga ah ee uu Turkigu isticmaalay sannadkii 2020 ayaa laga keenay Ruushka. Yurub ayaa sidoo kale ku tiirsan gaaska Ruushka. sidoo kale Turkiga ayaa daqiiqda ugu badan ka soo dhoofsada dalka Ruushka, waxaana sannadkii la soo dhaafay uu ka soo iibsaday 6.7 tan oo ku kacaya lacag dhan 1.8 bilyan oo dollar. khubarada dhaqaalaha ayaa ku tilmaamay in Turkigu uu in ka badan 10% waxyaabaha kala duwan uu ka soo iibsado Ruushka. sidoo kale dalxiisayaal badan oo Ruush ah ayaa fasaxyada ku qaata Turkiga, waxayna dalka soo geliyaan lacag adag oo uu xilligan aad ugu baahan yahay dalka Turkigu. dagaalka Ukraine iyo Ruushka ayaa galay wejigii ugu dambeeyey, waxaana la filayaa in xilli aan fogeyn uu dagaalku ka baaxad weynaan doono laba dal oo keliya. waxaynuna dhammaanteen ka wada dhursugaynaa meesha ay ku dambayso xaaladdu. intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa daawadayaal muuqaalkeenna maanta. haddii uu ku qanciyey muuqaalku, ha ilaawin inaad la wadaagtid asxaabtaada. haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo ka mid noqo bahweynta nagu xiran. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.